dhalinyarada xalaqaadka cilmiga aan u badnayn ee ku mashquulay culumta maadiga ah kana fogaaday xalaqaadka cilmiga diiniga ah oo nafta iyo shaydaanku ay marin habaabinayaan oo ay sirayaan mar walbaba waxa weeye ha ku waana qaataan qisadan xaafid ibn xajar al-casqalaani uu ka sheegayo yaxya ibnu aktab dad wasiir maray oo heer madaxweyne maray oo qaadi noqon jiro intaasoo manaasib ah ku soo tanaqulay ayaa waxay leeyihiin jaga iiga macaan iyo xirfo iiga macaan iyo shaqo iiga macaan badan sooma aanan marin xilli xalqada cilmiga aan joogi jiray nololka macaani ma jirto adduunyadana casiisaad ku noqon aakhirana casiisaad ku noqon laakiin haddaad majaalista cilmiga aad ka fogaato oo culumtii maadiga uun maantoonaan aad jabadjoogtid baranayso war see u tukane see wax isaga dahiri see beec u geli see haween u guursan waxaa dhici karta maantoo dhan haweenayda inay kaa furan tahay adiguna aad iskala joogtid se xalaqaadkii cilmiga adigaa iska marin habaabay maanta waxaa dhici karta maantoo dhan beecyo xaaraama inaad yacni quudanayso ood iska cunayso aakhirana xujo kuu noqon mayso waxaadan aakhire xujo u helaynin xalaqaadkii cilmigu meel walba yaallaan meel walba ay yaallaan marka culumtan maadiga waxaa weeye waa adduunyada uun muufaha lagu helo waaba ninkii nasiib lahoo muufada ku helo ninkii nasiib lahoo muufa ku helo marka culumta maadiga ah lama diidana oo macnaheeda hadalku ma aha waa xaaraan ayaan la baran laakiin ulajeeddada waxaa weeye awlawiyaadka aanu siino diinta awlawiyaadka yacni aanu siino tilaabta koowaad midda labaad midda saddexaad aanu diinta siino tan afraad maadiga ku bar wakhtiga kuu soo haray oo diinta kaaga soo haray ee faadilka ah culumtaada maadiga isaga baro yaa kuu diidaya sharcigu ma diiday laakiin haddaad tiraa lambarkii koowaad iyo lambarka labaad iyo kan saddexaadba intaba culum maadiyaan ka dhigan oo diinta iyo xalaqaadka cilmiga ma xaadirayo aad tiraaho noloshaadii waa dayacday wadna isku cayaartay noloshaadii waa dayacday marka mar walbaba waxaa weeye cilmiga fiqigu waa noloshii xataa waxaa u baahday bal iska dhaaf qof kale culimmadii ahlulxadiiska ee waaweynaa cilmiga xadiiska ku hormaray ilaa fiqigu waxaa weeye waa dhuuxii lagala soo baxay kitaabka ilaahay iyo sunnaha nabiga sala allahu calayhi wasalam dhuuxii lagala soo dhex baxay dad ahlulcilmi oo cilmiga xadiiska ku weyn ayuu fiqiga laakiin aad aan u akhrisan jirin ayaa dhowr masalo ayagu ay ka hoos baxday adiga maxaad u malayn marka waxaa weeye xalqo cilmi ah haddiiba ilaahay jalla jalaaluhu uu kuu dooray manaasibta la qabtay dunida lagu qabto oo dhan boqorkii adduunya aakhira waa adiga arrimaha siyaasadda ee la wado arrimaha wasiirnimada madaxweynenimada wax walba oo adduunyo laga sameeyo adiga ka sarreeya wadiifadda aad haysid ilaahayna jalla jalaaluhu qur-aankiisu inoogu sheegay tajaaribta duniduna wayna tuseen tajaaribta dunida dadka soo tajribeeyey ayaa sidan dhah marka waxaa weeye nolosha dhan ayaa waxay u baahan tahay cilmigan fiqiga ah alfiqhu huwa alxayaa fiqigu waa noloshii insaanka waxaa weeye nolosha insaanka tilaabtuu qofka bini aadamku uu qaadaba fiqhiyay ku dhisanta xalaal xaaraam karaahiyo sunno khilaaf alowlo tilaabtaad qaadaba intaa kama bixaysid waajib intaasaad ku dhex wareegi noloshaada dhan haddaadan markaa wixii kuu xalaal ahaa iyo wixii kaa xaaraam ahaa iyo wixii kugu waajib ahaa iyo wixii kuu sunnada ahaa iyo wixii karaahiyada kaa ahaa arrimahaas haddaadan baran faqad dayacta xayaatak noloshaadii waa dayacday alfiqhu huwa alxayaa noloshaadii oo dhanaa ku gaadaaman fiqiga haddii aadan marka fiqigii aadan baran oo xalaashii iyo xaaraamtii aadan baranaynin qof waxaa tahay iska nool oo noloshiisii dayacay